Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir oo hadal ka jeedinayay munaasabad soo dhaweyn ah oo lagu sameeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in uu iscasili doono haddii uu isbedel la imaan waayo muddo sanad ah. Gudoomiye Saalax Cali Maxamuud Dhabana ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in uu isbedel weyn ku sameeyo maxkamadda gobolka, gaar ahaan dacwadaha ay qaado iyo cadaalad u sameyntooda. Waxaan hortiina ka sheegaa in aan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir lacag ka soo doonan. Sidoo kale waxaan rabaa in aan ballan qaado dacwadaha yimaada maxkamadda gobolka in aan ka shaqeyn doono cadaalad laga filayo maxkamadda. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada gobolka Banaadir in ay ku garab siiyaan qorshihiisa sare u qaadista cadaaladda gobolka. Ujeedkayga waxa waaye sanad kasta aan hadda joogno January ayaa lagu jiraa, January soo socota cadaaladda gobolka Banaadir wax iska bedeleen mise wax iskama bedeleen. Su'aashaas idinka in dadka ka jawaabaan ayaa rabaa, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray, hadalka ha yaraado, hawsha ha badato. In aan hadalno ma rabno, laakiin waxaan rabnaa in wax la taaban karo. In sanad kadib maxkamadda gobolka wax ka bedelmi waayaan, waa ka tegayaa meesha, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.